laba waxood oo aad iyo aad muhiim u ah oo mid aan jeclahay in aynu garanno inay life long tahay waxa weeye dhaqanka kan ah qofku in uu graduate garoobo oo diblooma qaato oo gidaarka sudho oo yiraahdo PhD baan haystaa MA baan haystaa BA baan haystaa dabeedna dib buu ku kala furan. That has to stop. Education is a lifelong thing. It doesn't end the day you get a diploma. It doesn't end on that day. Reading, educating yourself is a lifelong thing. It doesn't stop. kulankan run ahaantii kulamo badan buu ka duwan yahay maxaa yeelay dhalinyaro badan baa isugu imaatay maartay wax baratay oo jaamacadaha dhigto mindkooda maartay waa ka duwan yahay maartay mentality-ga ay leeyihiin mentality-ga badanaa maartay Soomaalida ay isticmaasho wadanka back home markii la dhaho marka taas uga duwan yahay horta iyagoo maartay isku keenay maartay dhalinyartii dhan oo Soomaalida maartay voice-kooda in la maqlo la doonayo marka taasa maartay dhihi karayso Soomaalida maartay waxay u baratay oo hore ka bedeshay maartay waana ku faraxsanahay maartay inay dhalinyarta voice siiyaan dhalinyarta bartamaha iyo maartay media bartamaha. Let's cover single parent households first. I'm raised by a single mother, so I could probably fill this in. But mostly it's like it's very difficult to raise a child, you know, when there's a piece of each, you know what I'm saying? When there's a piece missing in the household, like you don't have a father. I grew up without a father, so you know what I'm saying, it's kind of difficult for my mother to actually run the household and do all that kind of stuff, to go out, you know what I'm saying, provide for the family. I don't know, like we should have actually a program or a community that actually helps out single mothers and single fathers or something like that, you know, to where, you know, they get the help that they need, you know, and they get everything insured, you know, like everything is ready for them and set for them. So that's. We know that there are a lot of single mothers that live in Minnesota and also other parts of the U.S. Perhaps we could have a program whereby single mothers themselves form a kind of like a program where they help each other and kind of lean on each other and be there for each other, and perhaps they can help each other with childcare. So in terms of conclusion, put out there that we want a special area of protection after further investigation to ensure that it does not become a burden. We want foreign naval vessels to also carry out patrols to stop their fishing and waste dumping vessels from operating in the area. waxaan rabaa inaan podiumkan apology ka bixiyo maanta si official recordka waa ka sheegay anoo ku hadlayo magaca dadkii waaweynaa ee Soomaaliyeed odayaasha waxaan rabaa inaan sheego youth Somali youth iyo carruurtaba laba group aan rabaa inaan apology u sameeyo victim baatiin nasiib darro adduunka waxaan isku dhacay dhaxalka waxa uu yahay marka dhaxalkii waa la ka qaaday dalkii institutionkii waxaan ku jeedaa Somalia ka hadlaya it's a wonder to be good in math. Don't be afraid of it. And teach your kids not to be afraid of math, especially girls. Because I don't know where it comes from, but people will say boys are good in math, girls are not good in math. No, that's not true. That's not true. You have to overcome that. And the reason is because math is the key to so many things. But this mental adjustment, why don't you samayna oo dadka caruurteena aynu ku abuurnaa kuweyna okay waxa weeye sideedaba waliba khaasatan intiin waxa u maray waliba waxa u badan tihiin arday jaamacadaha ama iskuulada qaarkiin waxa laga yaabaa inay high schools ku jiraan there is no substitute to hard work, and the other thing is your attitude, okay waxa weeye prepare and prepare and prepare. If you get an A, get an A next time. If you get a B, get an A next time. If you get a C, get an A next time. Don't sit and cry. If you get a D, get an A next time. And God forbid you get an F, get an A next time. You can get it. Well, always you have to have that kind of thing. Kan waa dadka yimid waddankaanito. Cudurrada dadka waddanka dibadda ka yimid oo waddankan qaba waxa waaye waa u jeedaan statistikada 1995 ilaa 2008 tirada sida u kordhaysa mar walba magiciisnayso
gaduudka waa dadka dibadda ka yimid cudurkan isaga mar kasta way ka badan yihiin dadka kale oo cuduradan qaba ogaada dadka madow waddankan degan oo dhan boqolkii hal waaye markii loo fiiriyo 5 milyan ku dhawaad oo Minnesota degan boqolkii hal bay ka yihiin dadka madow tira koob ahaan haddana cudurkan aad iyo aad iyagu u leeyahay markii loo fiiriyo tiradaas iyada maxaa kugu dhaliyay inaad halkaas uga soo tagto halkan ugu imaatay showgan lagu dhigayo niyo horta barnaamijkan waxa igu dhaliyay inaan dadka Minnesota jooga aan kala qayb qaato barnaamijkan horta sidiisa waa barnaamij taxana ah oo sanadkiiba mar la dhigo kaas oo loogu talagalay in lagu wacyigeliyo bulshada Soomaaliyeed siiba ardayda qurbaha wax ku barata maxaa malaysan wax ka bedeli doona bulshada Somali Youth Summit-ka sanadkan niyahow sanadba sanadka ka dambeeyay waxa u maleysaa in barnaamijka uu sii horumarayo dadku ay sii fahmayaan mowduucyada iyo barnaamijyada lagu soo qaadanayo dad waxa lagu casuumaa inta badan ama lagu invite gareeyaa aqoon-yahano ah marka bulshada iyo dhalinyarada waxaan u rajeyn doonaa inay ka faa'iideysan doonaan dadkaas adigu waxaan lagu tataaban ka dhaca macnaha khudbadda bari aad ka hadli doonto niyow khudbadda aan bari ka hadli doono qaybo badan ay isugu jirtaa waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan dhalinyarada ku wacyigeliyo wadannimada in nabad sidii lagu heli lahaa laga wada shaqeeyo in haddii dadka jooga dibadaha ama ardayda ah hadday iskaashadaan inay wax u qaban karaan dadka Soomaaliya jooga hadday noqon lahayd arday hadday noqon lahaayeen dadka waaweyn sidii solve loogu heli lahaa dhibaatooyinka waddankeena maanta ka jira halkaasna waxa inoo ka eg wareysigeeni bartamaha